waxbarashadan dawladdu dugsiyada ay hadda la wareegtay waxay astaan u tahay qaabkii dawladnimada iyo Soomaaliya oo soo noqonaya insha Allah sidii anagu waan ku soo baranay dadku waxay rajeynayaan muddo dheer inay helaan waxbarasho lacag la'aan marka maalmihii lagu dhawaaqay lamaanta inta ka dhaxla dad badan ah maxay iskoolka imaanaya ma soo wacay oo leh ay dawladdu waxbarasho lacag la'aan ay ballan qaaday waxaan sugaynaa marka anaga inay dawladdu mushaarkii macallimiinta ku bilowdo halkaas ay hawshu ka bilaaban doontaa hadii la yiraahdo manhajkii waa la keenay dadka danyarta dhammaantood waxay iyo kuwa kaleba waxay dhammaantood ay rajeynayaan inay soo baxdo waxbarasho nidaam leh oo ay dawladdu maamusho oo system istaba jooga ku soo maxay ku socda aniga dadkii lacag la'aanta wax ku bartaan fasalka koowaad iskoolkan hadda iskool siyaad la yiraahan ka bilaabay dugsiga sarena waxaan uga baxay dugsiga sare Baarbi oo Madiina ku yaal dharkayn lay hadda degmada loo bixiyay ku yaal waligayna lacag leeyma weydi marka waxaan rajaynaynaa inay sidaas oo kale soo noqoto jaamacaddu lacag la'aan ay ahayd ilaa meel kasta ardayga in wax la siiyo mana wax laga qaaday ma jiro marka dadka Soomaaliyeed sidaas ay rajaynayaan dadkii hore oo dawlad arkay saas ay rajaynayaan insha Allah جغرافيكالي horta manhajku manhaj anfacayo ka turjumaya dalka qaybihiisa kala duwan nidaamkiisa geographical aad u habaysan anfacayo wixii kan ka horeeyay wuxuu ahaa wax laga keenay Kenya wax laga keenay Ethiopia wax laga keenay Djibouti wax laga keenay Carabaha wax aan israacsanayn oo qoloba meel ka keensatay ayuu ahaa oo aan ka turjumayn danta qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed iyo danta ardada Soomaaliyeed sidaas darteed fikraddan wanaagsan ee dawladdu ay qaadatay iyo xukuumadda prime minister ay qaateen oo manhajkan lagu hagaajiyay wax aad u qurux badan waay waxaan nagu waajibay inaan ku far adayno soo dhaweyno tayadiisu way sareysaa